marwooyinka sharafta leh maamooyinkeenna qiimaha badan walaalahay marwaalidkay qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ururada haweenka gudoomiyaha fadhiya fadhisaara fadhisa walaasha Maryam iyo walaashay walaalahay kale gabdhaha shaqaalaha rayidka iyo gabdhaha siyaasiyiinta kulankan oo sida hore loo sheegay aan ahayn kulankii koobaad oo aad ku muujinaysaan dareenkiina waa idin la wadaagaynaa waxaan rabnaa wixii aad tiraahdeen annaga oo ka duulayna waxaan ku faraxsanahay inay hadda siyaasiyiinta ka mid yihiin dadkii dastuurka ku meel gaarka ah Habar Zahra iyo gudoomiyaha mooshinka ka yaala ay soo wada qoreen 8 sano dadkii ka soo wada shaqeynayay ururada bulshada rayidkana ay ka mid tahay Mama Zahra dhanka shuruucda ay ka mid tahay Soomaaliya maanta marxaladda ay ku jirto haddaan is yeelaynin cid walba waxay u tahay waadix wax walbaan ka horumarnay social media shalay ma jiro maanta talaabtii la qaado horay uga jirtaa qofka Soomaaliyeed guda iyo dabad wuu ogyahay waxa dalkan ka jira marka sina looma dafiri karo sina loogama been sheegi karo dhiilada taagan waa golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa inuu ku kala aragti duwan yahay mooshinkii laga keenay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanna waa kala aragti duwanaanshahaas laakiin aragti duwanaashihii 2018 AK47 iyo dhashiike laguma muquunin karo intii hore soo martay ayuu qaadanaa jidkaasuu maraa waayo waxbaa noo qoran shalay xoroosaad ayaa leh maanta xubnihii ku jiray ka baxay xoroosaadkii dib u eegisaa lagu samaynayaa ilaa uu ka imaanayo kii baarlamaanka 9aad yaalay ayuu ku dhaqmaa baarlamaanka 10aad waa wax qoran sharci looma diyaariyo qof dantiis looma diyaariyo kaasaa wax walba ku qoran xoroosaadkaasaa dastuurka fasiraad badan ka bixinayo waajibka xubnaha golaha shacabka ay ku leeyihiin ilaa gudoomiyaha golaha shacabka 275 marka laga reebo mudane xasan sheekh maxamuud xubin sharafeed cod leh oo ka tirsan golaha ayuu 276 ku yahay madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda marka laga reebo 275 xildhibaan oo asagana beesha digli marifle sabkalaankiisana uu dheelaayahay oo ka yimid aniguna beesha 5aad sabkalaankaygan uu yaxar ahaan ka iman laakiin shalay annaga codkeenu meesha ku fadhiya codkaygana maanta maalin wuxuu leeyahay value gaar ah maalinna wuxuu leeyahay qiimo ma laha wax dhici kara ma aha haddii lagu saluugana saldanada ku dirar ma aha waa saluugnay 107 xildhibaan ku saluugnay kuwa mooshinka saxiixan ka mid ah habarirtay xildhibaan ubax taliil waxay tiri mooshinkan ayidsanay ma saxiixin iyada iyo kuwo kaloo la midana 195 gaaraya ayaa haddana ogol inuusan gudoomiye noqon dhinac looga bixi karo ma laha waxaa meeshaas yaalla marka hadallada soo yeeraay oo isaga afkiisa ka soo yeeraay koo wuxuu yidhi mooshinkan hal xaba ku soo darsana horaan u niri kama filaynin maalintii ku xigtuu yimid waa aqbalayuu yidhi sharci waayo ma dhihin waa aqbalayuu yidhi idinkaa igama reegiyaradiina waad ogtiin waa la sii hadlo wuxuu yidhi haddana isaga maantadaan ugu dambaysa hadalkiisa 2 garab waayuu yidhi garabka kale isagaa yidhi baarlamaankiisii qaybsan 200 xildhibaana ka soo horjeeda yuu gudoomiye u yahay 75 u yahay وستواتن اللي هو قدومي أنقنا
wax dhici kara maaha marka waxaa lagula dhahaa 236 aake iyo dhashiikaad kula ahaane waa kasoo gudubnay annaguna kuwa aakayaasha iyo dhashiikayaasha wataa haweenkeeniyo uma nihin waxaa soo xiga wuxuu yidhi maanta hadalkiisa ugu dambeeyey taladii aqalka sare waaba kala duwannahay golaha shacabka iyo aqalka saraan kalana talada golaha aqalka sare golaha shacabka kuma shaqeeyo rule of procedure xeroosaad noo gaara ku shaqeynaa waa waxyaabaha ilduufka ah oo annagii shalay rabnay inuu guddoomiye noo noqdo aan isleenahay maanta meeshii hore ma joogo kalsooni xumadana gashay waa waxyaabahaas kusoo darsada haddii kale anaa idinkugu daraayo iyo taladii aqalka sare waaba ishaysanayba aqalka sare isagaa nooga cabanayo sharcigan markuu soo maray nagu aqbali karaan ama nooga hor imaan karaan ee wax ka bedeli karaan naga dhexayso wuxuuna yiri hadalkiisa maanta ugu dambaysa waa professor waa sharci yaqaan horu dastuuradii dalka wax uga soo shaqeeyay maanta inaan salugna xaqan u leenahay waayo wuxuu yiri xildhibaanadii meeshinka keenay ila bali baa shirka la iclaamiyay waa dambiilayaal wuuna xukumay isaga eedaysana ah qof maxkamad xukunta dambiila la dhahaa idinku ma ka sugaysaan marka jawaari dambiile muxuu yahay sharci yaqaanaadii waa dambiilayaal hadalkiisa ugu dambeeya ah isagaana xukuma annaga dambiilayaal ma nihiin waa eedaysantay adaa eedaysana eedin ka garbaxan leen waxaa kuu soo haray wuxuu yidhi jawaari kalsoonida mooshinkiisa haddii la qaadaayo waxay noqonaysaa golaha shacabka oo la burburiyey ama la soo weeraray mooshinkii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu qabtay maalintaas maxaa loo dhihi waayey madaxweynaha haddaa qabato madaxtooyadii oo burburaysa waayo mooshinkii haddaa qabato ama qarankii oo burburaayo waayo maxaa loo dhihi waayey 2 ra-iisul wasaare iska daba martay 3 ra-iisul wasaare oo lasoo shaqeeyay teeramka hore 2 ka mida mooshinadoodu qabtay hay-addii fulintaa dumaysa muxuu dhihi waayo oo lasoo weeraray waayo mooshinkaasaa la qabtay waxaan maqli jiray qaalihuursha nin la dhaha jiri jira waa wixii aan maqlay qaalihuursha wuxuu yidhi haddii lo baa loo keenay beer soo daaqday wuxuu yidhi lo-daan hal xukumo waxaa laga rabaa dadkii beerta lahaa ay ka daaqeen ushaan oo badan ah inay siiyaan tartiibaa loogu sheega waxaa la yiri qaalihuurshow lo-da beerta daaqday lo-daadii waay adaa iska leh wuxuu yidhi usha la jiifiyaana ballaatay gudoomiyaha mooshinkiisa markuu yimid muu leeyahay la jiifiyaana bannaan qaalihuursha waa kaa diidnay jawaari ma dhahaayo qaalihuursha leh qaalihuursha waa ka diidnay xildhibaan dhashiika ku difaaci karo iyo aaka fadhisabana ma jiro cod nimaan ku diri karo col haddaan usoo dumo ayay ka dhigan tahay col nimaan ku difaaci karo col haddaan usoo dumo ha dhahaan aniga waxaan leeyahay col nimaan ku diri karo cod haddaan usoo dumo xildhibaanka difaacaya aragti duwanaanshaha waa ku ixtiraama inuu tayda mid ka bedelan qabo laakiin cod ha ku difaaco 184 haddaan u weyno maxamed sheekh cismaan jawaari waa mar saddexaad oo aan hadlaayo guddoomiye golaha shacabka waa haddii loo helo 15 beri gudahood xeerkaan siinaayo guddoomiyaan soo dooranayna wax ka dhexeeya intaas ma jirto isbaaro looma hayso damqashada waa idinla qabnaa gabdhaha soomaaliya kuwaas inta lagu buufiyey kuwii shaahiga jidka goda shidaalka gada baatiyada wareejinaya ilmahooda oo dhinac socda ay la shaqaynayaan caseeyayaal ah oo maalin kasta dhibaatada kusoo gaarto haweenkeena waa idinla wadaagayna laakiin waxaad u kala barataan kan dhashiikaha weli maskaxdiisa ku jirto kan qabiilka weli maskaxdiisa ku jiro qofka nin jeclaysiga ku jiro qofka dalqadiisa weli ku jirta iyo danaha gaarka ah annagu ma nihin annagaa shalay keennay 6 bilood ka hor anigaa ka difaacayay maanta anaa wax ka saxiixay codkaygana qof inkiri karta male xuquuq asaasiya oo aniga leeyahay